qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Ceergabo oo maanta ka hadlayay arrimaha horumarka gobolka Sanaag iyo waxyaabaha dib u dhigay gobolkaasi ayaa ugu horeyn eedeymo u soo jeediyay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka kalluumaysiga Soomaaliland oo ay ku eedeeyeen inuu joojiyay qaybo ka mid ah kalluunka xeebaha Sanaag laga jilaaban jiray dadweynaha ayaa sidoo kale eedeymo kuwaasi la mid ah u soo jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay sheegeen inuu ku fashilmay wax ka qabashada xaaladda ammaan ee deegaanada Ceelaf Weyn iyagoona madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu si degdeg ah ula kulmo ergada 120 ka badan ee ka soo jeeda gobolka Sanaag ee haatan ku sugan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa si ay uga qayb qaataan arrinta cakiran ee ka taagan gobolka Sanaag la oran karaa dawladda Soomaaliland ma ogolo horumarka gobolka Sanaag haday noqoto dhanka tikadaha iyo haday noqoto dhanka kale hadeer mayd waxay ku shaqeyn jirtay ayaama dhawid dhaqdhaqaaq ay ku yeelatay magaalada xeebeedka mayd kalluunka la yiraahdo indha tooshlah waxa la yiri waxa soo baxday dikreeta soo baxday wasiirka soo saaray waxa la yiri kama shaqeynayo kalluunka indha tooshlah waa mashruuci waa ishii kaliya dhaqaale ay haysatay waxa ka sii horeeyay in tikada dooniyihii iman jiray ay magaalada ku dhaqdhaqaaqi jirtay sidoo kale Yemenka iman jiray oo kalluun intay lacag keenaan ama shidaal ay keenaan ay kalluun ka sii qaadan jireen xagga oo dawladana dakhli badan ka soo gali jiray sidoo kale iyadoo kale way hakisay hadeer waxa la oran karaa magaalada xeebeedka mayd way xiran tahay indhahana way isku qabsatay waana la oran karaa waa hagrashooyinka waaweyn ee ay ku hayso dawladda hagardaamada ay ku hayso waxaanay filayaa aan isleeyahay tikada berbera bal isleeyahay meel aan ahayn Soomaaliland berbera meel aan ahayn yaa waxba laga soo rogi ugu dambeysay in odayaal badan oo gobolka Sanaag ka tagay oo joogan Hargeysa waxaan oran karaa madaxweynuhu waxay doonayeen inay la kulmaan madaxweynaha gobolka tabashadiisa iyo horumarkiisa iyo barnaamijka inay kala hadlaan iyo barnaamijyo kale oo iyagaba u qarsoonaa waxa la igu yiri madaxweynihii lama kulmin madaxweynihii Jaanis uu helin anigu waxaan aaminsanahay hadii ay gabilay ka iman lahaayeen odayaal noocaas oo kale ay inuu markaba hawshooda u dhameyn lahaa Muuse Biixi laakiin markuu reer Sanaag ay noqoto gobol Sanaag wax tabasha uu ka haysta ama uu ka ogol yahay ama inuu la soo fadhiisto meel habaraatee Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland ma ogola in uu odayaasheen xataa la soo fadhiisto meel ay tabashooyinkooda ka horgaan halka reer gabilay hadii ay u iman lahaayeen hawlahooda oo hore uga dhameyn lahaa waxaan leenahay wasiirada gobolka ka soo jeedana Muuse wuxuu ma sheegi kartaan miya Muuse maayad quraanaaba wuxuu yiraahdo Muuse daadar galbeed u dhisanayaa gobolka Sanaag wixii aad u qaban lahaydeen iyo wixii aad gobolka tar lahaydeen baa loo baahan xukuumadda kulmiye anigu xukuumad boormaayo gobolka Sanaag runaantii dib iyo aad waxyaalo aad u badan bay u geysatay maanta waynu ognahay Ceelaf Weyn dagaal baa ka socda xukuumaddu waa ka dhaga adeegtay ciidan uma soo dirin aad iyo aad baan u cambaareynaya maanta ay wax dhaceen oo dadkii ay islaayeen bay ku soo ordayaan waqtigii nabadda loo baahnaa in la dhax galo qolo walba waxay tabanayso loo qaban lahaa xukuumaddu arrintaa way ka dhabar adeegtay waxaanu leenahay xukuumadda dadka idinka isku dareey dadka ka dhaxbaxa gacanta iyo dhibtaad kula jirtaana kala dhaxbax marka xukuumadda waxaanu leenahay u jeedinayna Muuse Biixi dhibta aad ku wadid jooji wasiirka arrimaha guduhu waxa weeye uu ku guul daraystay anigu ra'yigan san qabo inuu waxa weeye soo afjaro waxa weeye xaaladaas colaadeed ka jirta Ceelaf Weyn ka jirta sababta ku tahay waxa weeye waa ergeyga xukuumaddu u soo dirtay inuu hadii laba ku roon yahay arrinkan waxa weeye xal u keeno waxana ka qabto sadarteed uu ku fashilmay taasi waa dabcan ummadana waxa weeye arkaysa xukuumaddu waxa waajib dadka inay albaabada ka xiranin in waxa weeye ay soo dhaweyso inay qanciso oo qaabisho in waxa weeye wixii sharciyana waxa weeye laga qaabilo dadkaas waxa weeye la soo dhaweeyo waxa weeye gobolku aad buu waxa weeye ugu hooseeya imika waxa weeye xeebihii sidoo kale kalluumaysiga waxa weeye aad buu liitaa waa la xiray waa la joojiyay dadku waxay ka shaqaysanayeen matalan waxa weeye shark oilkii bahalkii wasliidka la oran jiray dadka ku noolaayeen waxa weeye bulshadu ka ganacsan jireen dhaqaalaha faraha badan ka soo gali jiray sanadka xukuumaddu way xidhay waxa weeye wasiirka xidhay waxa xidhay ina gaafaadhi baa xidhay xaaladdu waa serious dadku meel xun bay maraysaa xukuumaddu waxa karatay xukuumaddu dad wax u ah magaalada oo fahmaya xukuumaddu way magaalada soo dirtaa hadba qof Hargeysa laga magacaabay aan magaalada qof ka garanay ganacsiga waa fadhiya kalluumaysiga waa fadhiya waxbarashadii waa la og yahay wax maanta aanu nahno maanta waxba noo soconaya aanu garan mayno wasiirada horta xogaal magaalada ka yiin wasiirka Ceergabo laga magacaaba waa wasiir xogaal magaalada laga magacaabo way laakiin wasiirka Hargeysa laga magacaabay waxaan magaalada ka soconay ma ogaba wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay ina kaana waxaan leeyahay madaxliga wax ku fahmi laabana waa dhaaf maanu filayn reer Sanaag inay noqon doonaan dad la naco Muuse Biixi haduu diiday dadkii metelay dadkan inuu la kulmo diiday gobolkan wax qabadkii saamiga xaq u lahayn laga hadlo waxaanu aaminsanahay Muuse Biixi inuu naga maarmay gobol ahaan annaguna waanu ka tashan doonaa reer Sanaag
way isu iman doonaan waxayna tashan doonaan meeshii ay dantooda ka arkaan Soomaalilandnimaduna uma baahna Soomaalilandnimadu madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkiisuba iyo wasiiradiisuba waxa muuqatay in gobolkan dayaceen aanay doonayn wax allaale iyo wax horumar ay gobolkan la doonayaan ma jirto doona Muuse Biixin hadaanu jawaab degdega aanu ka bixin arrinta cuqaashu la kulmi waayay ee gobolkayga matalaysa waxaanu aragnaa in la nacay annaguna waanu tashan doonaa haddeerba madaxweyne waxaan ku sheegaynaa hadday colaadayadan tahay halkan ka dhacaysa dadkan walaalaha aan isku deegaanka nahay iyo hadday tahay maxaan ku raadaay arrimaha iyaga kale reer sanaagnimaba waanu ka tashan doonaa madaxweyne Somaliland gobolka Sanaag iyo gobolada bari oo dhan intay leegiin way hakratay jaamacadu ma ogola waxbarasho ma ogola maxay warshado ma ogola maxay dekadu ma ogola eerbadu ma ogola annaguna waanu tashanayna haddaan gobolka Sanaag nahay amaanu ma ogola haddaan gobolka Sanaag nahayna colaadan waanu iska dameeyna waanu tashanayna Barkhad Maxamuud Geedi